kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa anigoo Nuurkay ah halka naga daawanaysaana waa Nuurkay official gabdho dhalinyaro ah ayaa u baxay safar ayagoo jecel inay wax soo baaraan waxa la socday macallimiintoodii gabdhaha kamid ah waxay ka fogaatay ardaydii iyo macallimiintii markay hooshii ay dhameeyeen dadkii baaski ayay koreen gabadhina way ka tageen ayagoo mooday inay la socoto gabadhi way soo noqotay mise meeshii waa cidlo dadkii way tageen cabaar bay qaylisay mise cid maqlayso ma jirto kadibna dantu waxay ku kaliftay inay u lugayso tuulada ugu dhow waxay soo lugaysayba waxay ku soo beegmatay buul yar oo meel ka dhisan way gargaracday wiil dhalinyaro ah baa ka furay waxay tiri waxaan rabaa tuulada ugu dhow wuxuu ku yiri halkan tuulo kama dhawo ee iska joog bari baan ku geenayaa gabadhi iyadoo baqaysa bay buulki soo gashay sariirtiisi buu u habeeyay habeenkii markii la gaaray ayuu shumac shitay gabadhina way baqaysay nin dhalinyaro ah oo ay qol hurdo halista uu leeyahay habeenkii oo dhan way is alaalinaysay waxayna fiirinaysay bal waxa uu sameeyo markuu xoogaa joogaba shumaca ayuu gacantiisa saaraa oo uu ku gubaa waagi markuu bariyay isagoo faraguban ayuu gabadhi kaxeeyay gabadhuna waxay moodaysay inuu bajin yahay ninkan farihiisa guwaaya markay aabaheed u tagtay ayay qisada u sheekaysay kadibna aabaheed uu rumaysan waayay wuxuu is yiri gabar dhalinyaro ah ninka ma badbaadayso wax un baa jira odaygii wuxuu iska dhigay nin safar ah meeshii ninka uu joogay ayuu tagay kadibna ninkii dhalinyarada ahaa ayaa marti qaaday odaygii wuxuu arkay wiilkii oo faraha guwan maxaa kugu dhacay buu ku yiri wuxuu yiri waxa igu dhacay gabar dhalinyaro ah oo lunsan baa habeen dhaweeto ila soo seexatay qolkan yar kadibna sheedaankii ayaa ii amray inaan gabadha ka shaqeysto markastoo ii amray inaan ficil xun ku sameeyo dabkaas baan gacanta geliyaa odaygii wuxuu go'aan ku gaaray inuu wiilka gabadha uu u guuriyo sidaasna buu gabadha ku guursaday wuxuu ka tagay xaaraan hal haween ah ilaahayna wuxuu siiyay xalaal lagu waaro ilaahay khayrka hana waafajiyo xumaha iyo shartana naga reebo waxaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo